بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنه وناكسن daawadayaasha qiimaha qadarinta iyo qaayaha naga mudan daawadayaal meel kasta oo daafaha dunida iyo dalka gudihiisa baad nagala jaan qaadisaan. halkani waa xarunta telefishinka caalamiga Startv magaalada Burco. dabcan daawadayaal waxa la soo gaaray intaan hawada idiin soo marin jirnay wararka muuqbaahiyaha haysta qoddobada wararka ugu doorka roolan idiin soo gudbin doona anigoo Khaalid Axmed Maxamed Khaalid Bakaylana waxa kamid ah daawadayaal. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabadii heshiis ku kala saxeexanaya xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale shirkadda DBO heshiiskaas oo ku saabsan ballaarinta dekedda magaalada Berbera. xisbiga mucaaradka ee wadanaya waxa uu ku dhaliilay xukuumadda Soomaaliland heshiiska ballaarinta dekedda magaalada Berbera. maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa waxa uu kulan kula qaatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland guddida joogtada ee golaha guurtida ee Soomaaliland. maayirka xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda hoose ee degmada Burcana waxay telefishinka caalamiga ee Startv uga warbixiyeen dayactirka wadooyinka kala duwan ee ka wadaan magaalada Burco iyadoona ay waqti xaadirkan lagu guda jiro xilli roobaadka. daawadayaal qoddobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan inta wararka telefishinka caalamiga ee Startv ay socdaana waxaa kamid ah nin qarax culus la damacsanaa wadanka Mareykanka ayaa gacanta lagu dhigay. dhalashahan halkuu ka soo jeeday ninkaasi maxay ahayd ujeedada qaraxiisaasi uu daarna waxaad ku daawan doontaan wararka telefishinka caalamiga ee Startv. balse daawadayaal inteenan u gudagelin qoddobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo faahfaahsan waxaad ku soo dhawaataan qadar xayeysiisa.